markii la isbarbar dhigo waqti xaadirkan liida sida quruxda badan iyo nabadda ay dadka ugu raaxaysanayaan qiyaasta waxaa xasuustaa waagii aan carruurta halkan mar walba waxaa jiri jiray dhibaatood wax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah ku soo toosay oo ardayda iskuulada u socoto farxadan la qiyaasi kana ayaa dareemaa aad iyo aad very proud nabad inay wax weyn tahay aan heestaan ku sameyn markaan sameeyeen raadi muqdisho aan ku duubnay markii ugu horeysay raadi muqdisho markaan ku duubnay kadib ay Jabuuti la aadnay marka nabada naadmi riwaayadan oo sahal macnihiis markii Haji Banaadir iyo Shamaali iyo fanaanin badan riwaayad aan dhignay oo Jabuuti aan ku duubnay حتى مركي هست اللي سمينا إيه حتى في الجو مني هست وحنا كسمينا وقتاس حتى تقولي لك مصاب بيجري ما أنت نساعد دارب تاس يعني ترتيبه إن شاء الله aad u weyn way noo tahay waa idin baraarujinaya waa idin dhiirigelinaya walaalahayga tihiin garbahayga tihiin maanta haday wax isoo gaaraan dadka oo macnaha isoo garb istaagi lahaa ama dhiigi iyo shubi lahaa idinka waaye in macnaha wadanka meesha u socdo meel ka sii sareysa si gaarsiino magacaygu waa Samiir Nuuruddin Nazaar 23 jir ahay waxaan ka imaaday dalka Norway soo barbaaray haddana waxaa ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed weligay waa jeclaan ciidanka inaan ku biiro oo yacni ciidan noqdo qof askari ah oo shaqeysa markaas dariis wadato waagaan yaraa markaas xataa laakiin mislihin Soomaaliya inta ciidanka Soomaaliyeed ku biiraysaa marka dareeska xirto waxaa dareemaa mas'uuliyad weyn waxaa dareemaa awood iyo dhiiranaan iyo sharaf wax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah ku soo toosay oo ardayda iskuulada u socoto suuqa furan yahay gawaarida iyo ganacsiga si nidaam ah u socdaan farxadan la qiyaasi kana ayaa dareemaa wax kasta oo qaban karaan dumarka wax walba oo qaban karaan dhagax halqaadaadi ahaleed iyo dabaq la jibinaadi ahaleed iyo mid la dhisaadi ahaleed iyo qori la qaadaadi ahaleed laf dhabarka wadankaaniitin waa dumarka tirada waa soo ziyaadaysaa oo ciidanka booliska dumarka ah xataa aan dhahno sektarada oo yani security-ga ah iyo xataa shaqaalaha dowladda markaas dhalinyarada oo shacabka Soomaaliyeed ee arkaan markaas inaa shaqeynayo oo darees aawato way weydiiyaan qaabka ay u soo biir lahaayeen ciidanka iyo yani wadaday mari lahaayeen anna waxaan ka caawi karo waa ka caawiyaa markaas in waajib saaran waayo magacaygu waa Qawla Maxamed waxaan ku dhashay magaalada Baydhabo maadaama dalka dagaalo sokeeyo badan oo soo maray waxaan chance u helay inaan wadanka Kenya waxbarasho aan u aado
waddanka waxaan ku soo laabtay 2018kii markaan arkay dhibaatooyinka bulshadeena haysato khaasatan haweenka. markaan dalka ku soo laabtay waxaan raadiyay shaqooyin oo aan ugu howlgalo dhibaatooyinka dalka ka jira aan ka geysta doorkaygii. alxamdulillah waxaan helay shaqadan xarunta xalinta khilaafaadka ee magaalada Baydhabo oo aan hadda shaqo badan uga hayo bulshadayda. halkan waa halkan ka howlgala xarunta xalinta khilaafaadka ADR-ka hadda aan shaqada galayno. iga fur xarunta waxay qabataa waxa lagu xalliyaa khilaafyada iyo muranka ka dhaca bulshada degan magaalada Baydhabo. Assalaamu calaykum. warama xaaladin waxaa ka shaqeeya ilaa 33 oday oo kasoo kala jeeda qabiilaha degan magaalada Baydhabo iyo 30 habeena oo ayagana kasoo jeeda xaafadaha magaalada ay leedahay 10 xaafadood. maanta ay kiisas badan noo yaalo oo ay ka mid tahay kiiska hadda aan ka hadlaynay ee haweeneyda jirdilka loo geystay iyo 2 kiis oo kale oo aan hadda receive gareynay warbixinteeda wili aan haynin oo warbixinteeda aan raadin rabno hadda. dhibaatooyinka haweenka Soomaaliyeed haysta way fara badan yihiin. haweenka Soomaaliyeed tacadi lagu sameeyaa waa la kubsadaa jirdil lagu sameeyaa bulshadeeda faquuqdo dadkeeda faquuqo khaasatan familkeedii. gabadha markay gaarto heerkii waxbarashada waxaa lagu yiraahdaa guriga joog. gabadhii nasiibka saaciday wax soo baratay oo rabtay in dadkeeda wax u qabata ayadan waxaa lagu yiraahdaa hadalooyin niyad-jab u keeni kara يعني nooma talinaysid wax nooma qaban kartid oo ku qasbaa inay ka tanaasusho riyooyinkii iyo rajada ay lahayd. waxaan rabnaa inaan waraysi aan la yeelana aan baaris aan ku sameeyno inay wax ka jiraan aan ogaano cabashada gabadha ay sheeganaysa. marka kulay waxaan wareysanaynaa gabadha hooyadeed iyo qof dariskeeda ah. xarumo oo wala jira xarumo caqabadooyin fara badan ayaa iska jiray bilowgii markaan shaqada aan bilaabayay. tusaale wax oo tixgelina kama heli jirin bulshadeeda iyo dadka aan la shaqeeyo sida inay sidii dumar ahaan ay ii yasaan oo la igu yiraahdo hadalooyin waxba ma qaban kartid. laakiin alxamdulillah mowqifkayga waa ku adkaystay. heer waxay gaareen in ay igu kalsoonaadaan oo ayna fursad siiyaan haweenka anigoo kale ah hawsha aniga ahay maanta ay la qabtaan ay xarunta ay ka tirsan yihiin ay xalliyaan kiisaska. waxaa ka shaqeysa ilaa 106 qof oo volunteer ah oo kala jooga gobolada dalka. waxyaabaha clean up-ka aan waxaa ka mid ah sida xeebaha oo kaleeto inaan xeebihii tagno aan bulshada ku wacyigelin inay xeebihii nadiifiyaan oo kaleeto. barnaamijka dugsiyada cagaaran barnaamijkaas waxa uu ka kooban yahay in ardayda dugsiyada dhigato la baro wax loo yaqaano environmental lessons ama casharada deegaanka la xiriira sida ay deegaanku ilaalin lahaayeen sida dhirta u beeri lahaayeen. iskuullada dhirayn ayaa aan ka sameynaa sidoo kale ardayda waxaan barnaa sidii ay dhirtaas ay u ilaasho lahaayeen oo kale. waxaan sameynay dhirbeeris ka sameynay magaalada Muqdisho meelo kala duwan sida masaajidada iyo isbitaalada oo kaleeto. tirada dadweynaha caasimadda ayaa sii kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ee sanadahan maadaama amnigu uu soo hagaagayay. Muqdisho waxay noqonaysaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu koriimaha badan ee dunida. marka dadka oo bato waxay saameyn ku yeelanayaan deegaanka sida aad aragtaanba halkan qashinkan aad faraha u badan waxaa keenay dadku waxay u baahan yihiin in la siiyo wacyigelin joogto ah. dalka noogu soo noqo
fiiri quruxdan iyo damaashaadkan haddii aan isku tagno oo aan ka shaqayno nabadeenna waxaan si wanaagsan ugu raaxaysan karnaa dhulkeenna barwaaqada taalo iyo nimcada taalo xeebta dadweynaha ama public beach waa xeebta liido marka bulsho aad u fara badanaa jimco walbo iyo waqtiyada firaaqada ay leeyihiin u imaadaan inay ku dalxiisaan haba ugu badnaato maalinta jimcada iyo khamiista iyo xilliyada habeenkii marka dadka ay shaqada inta ku caajisaan ama habeenkii ay soo doontaan inay ku socdaan oo waqti ay ku qaataan annaga marka waxyaabaha aan aadka ugu faa'iidaysan karna waxaa ka mid ah xeebaha quruxda badan ee dalkeena aynu kala duwan sida xeebta eyl oo kaleeto ah meel aad u qurux badan oo nadiif ah dadkan ay ku dalxiisi karaan qofku waa noogayaa dibadda moogtahay waayo qofku wuxuu jecel yahay dalkayga waanu jeclayn moogtahay marka waxa ay keenay aniga nin saaxiibka maxamed xasan gacmo dheere la dhaho ayaa waxaanu goosannay inaanu dalkii dib ugu noqono oo waayo aragnimadaanu ka dhaxalnay macallinnimada tan yurub iyo tan maraykankaba inaanu dalkeena iyo carruurteenna ugu deeqno fikradaydu waxay ahayd markii meel qorayaashu ay wax ku qoraan oo ku nastaan oo maaragtay xeeb ah oo maaragtay ku socon karaan oo buuq aan lahayn oo maaragtay ayaan taladu ahayd nasiib darro dadka iyaga dibadda jooga waxay noqdeen victim TV-ga oo waxay ka arkaan marka maalin kasta waxaa la tusaa dagaal iyo balaayo iyo jab iyo dhac iyo marka taasay fikradda ku haystaan laakiin reality on the ground yacni runtu waa wax kale weeye markay dibadda ka yimaadaan oo ay arkaan dhulku suu nabad u yahay dalkiisu u wanaagsan yahay dhadhankii urkii u soo noqday dalkooda waxa weeye waa markaasay ku farxaan geedaha ugu fac weyn waxa weeye berdaa la dhahaa actually Soomaaliya waa ka soo dhamaaday war ma aha dhaqaale inaad la timaado dalkaaga waxaad la timaadaa yacni karti badan oo aadan ogeyn inaad leedahay ayaa jirta waa idea adduun baad soo aragtay ma garatay la imow ideaha wuxuu yahay hanti ah hadda dadka ii yimaado ilaa iyo xamar meel kasta ka yimaado ilaa iyo maaragtay boosaaso hargeysa yacni markuu qofku yimaado dalxiiska dadkii halkan ku dhaqnaa hadday kobshaa ka cabaan waa faa'iida waa riyadeyda waxay tahay in aan hawsha aan haayo aan meesheeda kasii wada aan ballaariyo aan habeen badan aan u noqdo dhiirigelin haddii aan ka shaqayno oo aan isku tagno aan ka shaqayno nabadda waxaa waaye waxaa noo hagaagaya waddanka si qurux badan oo ugu raaxaysan karnaa riyadeyda waxaa waa in meelaha ugu sareeyo inaan ka gaaro dhanka amniga dalka in darajadeeda ii ziyaado generaal aan gaaro insha allah hadda laba xidig la ahay koow laba shakada ma aha laakiin waa la gaaraa insha allah Soomaaliya waxa weeye at the end of the tunnel waxaa ka muuqda iftiin ayo ifayay leedahay moogtahay warigayga taas waaye niyaddayda waxaa waye dadka inaan baraarujiyo wax u sheego inaan dadkayga wax u sheego nabaddaan u sheego kii aniga iga yar kii kaleba inaan nabadda u sheego oo yacni aan baraarujiyo aadan ugu kalsoonahay oo nabad aan ku wada dhaqanno Africa.